ganacsada Baashi Siciid Xuseen oo kamid ah ganacsatada reer Puntland oo shir jaraa'id garow ku qabtay ayaa waxa uu ka warbixiyay dil hore loogu geystay walaalkiis oo ahaa gudoomiye hore ee gobolka Karkaar wuxuuna ka codsaday dawladda Puntland in sharciga la horkeeno cidii dilkaasi ka dambeysay. arrinkan wuxuu ku saabsan yahay Allah naxariisto gudoomiyihii hore gobolka Karkaar maxruum Yaasiin Siciid Xuseen la dilay 2009 April 26 lagu dilay tuulada Durdub isagoo laba beelood oo walaalaha islaayay dhexdhexaadinaya kadib nimankii dilay way carareen maadaama habeen ma ahayn maalin bay ahayd wala arkay wax qarsoon ma waa wax cad weeyaa waa la soo qabtay meedkii iyo gacan ku dhiglayaashii magaalada madaxda gobolka Karkaar baa la keenay degmada Qardho waa qirteen waana lagu marxanti furay kadib nimankii waxa lagu xukumay dil toogasho ilaa maanta oo ay marayso taariikhda 2018 ilaa 2009 nimankii xabsiga ku jiraan in kasto mid kamid la sii daayay 2015 anigu garan mayo sabab iyo qiil gacan ku dhiigle lagu sii daayo sida darteed waxaan codsanayaa kuwii daminto sii daayo beenta ku damintay taliyihii xabsiga dhexe Boosaaso Shirabadi oo warqada ugu horeysa soo qoray oo ma hayn karo caafimaadka qoro beenta kuwii damintay maxkamadihii sii daayay in sharciga la horkeeno hadii sharcigu ka shaqeeyo Puntland. dhanka kale ganacsada Baashi waxa uu madaxda ugu sareeyay Puntland ka codsaday in arintan la soo farageliyo. waxaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami xeelleeriye gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka amniga taliyaha booliska dhammaan inta amniga ama mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ay khusayso intaasan gaarsiinaya madaxweyne codkayga wada dhageysan doontaa baan u malaynayaa waxaan aad u jeclahay in arrinka degdeg wax uga qabatid waxaan kaloo aad u jeclahay inaan is aragno si aan kaaga dhaadhiciyo xoogaha dhabta ah. Farax Yemani SBC Garowe.